السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتنا كحرن جنال كانوا هويقا بلشده كسو دواده موضوعنا مانتا هداد جنال كانوا كعصوبتين صاحبين سوبسكرايب نوصارا وما سنتين دودت maanta waxaan idila wadaagi doonaa cuntooyinka hooyada uurka leh aad iyo aad ugu fiican. saaxiibayaal hanaga fogaanina. hooyooyinka uurka leh cuntooyinka aadka ugu fiican borotiin kalena waxaa kamid ah ukunta ayaana kala baxda. ukunta biyaha lagu kariyay waxaa ku jira borotiino badan, waxa ayna u fiican tahay korniimada maskaxda ilmaha. sidoo kale timirtana waxaa ku jira sonkor dabiici ah. xilliga uurku ay hooyadu leedahay waxay u baahan tahay energy aad u fara badan, waxayna kaloo timirtu socodsiisaa caloosha. liinta iyo toonta, liimaha noocyadeeda kala duwan, liintu waxay ku jira vitamins badan, waxayna toontu iyo liintu jirka ka saaraan sunta faraha badan. haddaba digirta iyo faasuuliyada welibana cascas, qudaarta cagaaran waxay ka hortagaan calool fadhiga. kalluunku waxa uu dejiyaa maskaxda inta badan. mooska waxa uu kusoo dejiyaa neerfaha, waxaa laga helaa energy badan. waxaa ku jira laba maado oo muhiim ah oo hooyada uurka leh faa'iido badan u leedahay. maadooyinkan oo leeyahay vitamin B6. haddaba caanahana waxaa ku jira calcium badan haddaad cabto. ugu dambeyntii qudaarta fruitiska noocyadeeda kala duwan haddaad isticmaashid hooyada uurka leh waxaa laga yaabaa inay faa'iido badan u leedahay. saaxiibayaal, hooyo kasta oo uur leh haddii ay mowduucanay daawanayso qudaartan kor ku soo xusay waa inay isticmaashaa. bidmillaahi kariim. waa mahadsantihiin saaxiibayaal.